nabadgelyo saaxiibayaal kula soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah loolanka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ee ku aadan in xildhibaanada lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo waliba Garbahaari ay fariistaan baarlamaanka maalinta Khamiista ee ku soo beegan markaasi doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo markaasina Amison ay war ka soo saartay xarunta lagu qabanayo doorashooyinka iyadoo bandow ku soo rogtay xerada xalane haddaba Amison iyo la safan yihiin xog iyo macluumaad dheeri arrimahaas aan idinkaga haynayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadeel waxaan idinla wadaagi doonaa goobta lagu qabanayo doorashooyinka guddoonka golaha shacabka oo la shaaciyay iyo waliba xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee Villa Hargeysa oo amni daro looga kala cararay sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho kulamo siyaasadeed ka socda iyo waliba madaxweyne Farmaajo oo iminka bilaabay ololihiisa doorashada uu ku aadan sidii mar kale uu ugu soo laaban lahaa kursiga halkaasoo ku dambeeya kursigii 86 Fahad Yaasiin oo muddooyinkan u dambeeyay sheeqay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan aynu ku bilownay howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegayaan bandow ay ku soo rogeen xerada xalane ee magaalada Muqdisho qoraalka ADMIS ayaa waxaa lagu sheegay in bandowga lagu soo rogay xerada xalane uu saari doono inta u dhaxaysa 26 bishan ilaa 28 bishan Abriil teendhada Afisyooni oo ku taala xeendabka xalane ayaa lagu qabanayaa doorashada guddoonka baarlamaanka cusub sida uu shaaciyay gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed go'aankan ay ADMIS sheegtay inay qaadatay kadib markii ay la tashi la sameeyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha oo hoggaanka u haya arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ay sheegeen inaan loo dhawaan karin xarunta teendhada Afisyooni maalmaha soo socda doorashada guddoonada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya sidoo kale ADMIS waxay cadeysay in howlaha kale ee garoonka diyaaradaha aadan cadda ay si caadi ay u socon doonaan inta lagu guda jiro doorashooyinka ka dhacaya Afisyooni doorashada guddoonka baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa loo wareejiyay Afisyooni kadib markii shaki badan laga muujiyay ammaanka xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa halkaas oo weerar hubiyaal ay loo adeegsaday lagu qaaday xilli uu socday kulankii koowaad ee xildhibaanada golaha shacabka halkaasi ay ku shirayeen haddaba in ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka cararaan xarunta Villa Hargeysa amni daro darteed ayaa la sheegay inay fadeexo weyn ay ku tahay hay'adaha ammaanka ee Soomaaliya kuwaas oo gudan waayay amniga haddaba doorashada loo wareejiyay teendhada Afisyooni ma waxaa laga leeyahay qorshe ku aadan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo Axmed Madoobe ay dhaqangeliyaan in 16 xildhibaan ee lagu soo doortay deegaan doorashada qaldan ee Ceelwaaq in markaasi halkaasi lagu dhaariyo maadaama sabtidii la soo dhaafay loo diiday xildhibaanadaasi inay galaan xarunta Villa Hargeysa oo ay ka socotay khudbad jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiinta halkaasi ay u jeedinayeen iyagoo la sheegay in markaasi aanan la siinin kaarka aqoonsiga si ay baarlamaanka u fariistaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka amar qaata madaxweyne Farmaajo oo la dhigay baraha control ee madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa xildhibaanadaasi diiday inay gudbaan haddaba qorshahan guddoonka baarlamaanka loogu wareejiyay teendhada Afisyooni ma waxaa laga damacsan yahay in xildhibaanadaasi la gudbiyo isla markaana la fariisiyo sidoo kale 16 xildhibaan oo lagu soo doortay magaalada Garbahaari oo ah deegaan doorashada saxda ah ayaa iyagu soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaas oo doonaya iyagana inay fariistaan baarlamaanka 22 xildhibaan oo si sharci darro ah loogu soo doortay magaaladooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaari inkastoo Garbahaari ay ku jirtay heshiiskii 17 September ayaa magaalada Muqdisho ku sugan lamana oga sida ay markaasi xaaladdu ay isku bedeli doonto maalinta Khamiista oo loo midlan yahay doorashada guddoonka baarlamaanka ee golaha shacabka Soomaaliya doorashada ka dhacday Ceelwaaq ee maamulka Axmed Madoobe iyo guddiga doorashada heer federaal ay gardaadinayeen ayaa waxaa ku soo baxay Aamine Xuseen Cali halka doorashadii kale ee Garbahaari ka dhacdo oo ku soo baxay Aamino walaalkeed Nuur Xuseen Cali kursigan oo qoonda haween u hay jufada Gasaare Gude ee beesha Raxweyn ayaa tilmaam cad ka bixinaya muranka iyo khilaafka xalka loo waayay ee 16 kursi ee gobolkaasi Gedo
si kastaba waxay u badan tahay in kursiga aamino uu noqdo midka aqoonsiga heli doona inkastoo aan weli aysan u hubnayn maadaama ay garab taagan yihiin Jubbaland guddiga doorashada fiid iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa sabtidii bogaadiyay dhamaystirka doorashada magaalada Ceelwaaq isagoo qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook ku yiri waxaan u hambalyeeynaya guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga doorashada Jubbaland iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay ahayd gobolkaasi Gedo xog lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa sheegaya in sidoo kale Rooble uu gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabanacad ku cadaadinayo inuu aqbalo natiijada kuraasta lagu qabtay magaalada Ceelwaaq inkastoo Dhabanacad uu shaaca ka qaaday inuusan jibin karin heshiis la gaaray oo isla markaana muhiim ay tahay in mar kale ay madasha ay fariistaan si go'aan kale oo arrimahani ku aadan ay u soo saaraan iyadoo arrimahani jiraan ayaa dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa ka socda olole xoogan ay wadaan musharaxiinta kala duwan ee iyagu u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo iyagu kala xodxodanaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Hotel Jazeera iyo hoteelada kale ee ku xeendaaban airportka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda olole xoogan iyadoo halkaas isugu tageen dad siyaasiyiin oo aad u fara badan xildhibaano iyo waliba dad kale oo iyagu la shaqeynaya dadka musharaxiinta waxaana la kala xoogayaa oo la kala badsanaya xildhibaanada isla markaana waxaa la sheegayaa in musharaxiinta qaarkood xildhibaanada ay ku salaamayaan dhaqaale aad u fara badan isla markaana marka loo geeyo kaliya ay weydiinayaan gaari noocee u baahan tahay maxaa kale u baahan tahay ku siiya lacag noocee ayaa doonaysaa lambarkaaga ii qor iyo waliba erayo kale oo aad markaasi u soo jiidasho leh kuwaas ay ku doonayaan in codka ay kaga helaan marka la fariisto doorashada madaxweynaha Soomaaliya xaaladda magaalada Muqdisho waxaa ku soo kordhay iyadoo amni daro waxaa la sheegayaa in xubno ka tirsan al-shabaab ay gudaha u soo galeen kuwaas oo markaasi xiran jaakadaha qarxa isla markaana doonaya inay isku qarxiyaan goobo cayiman oo la sheegay in loo soo bartilmaameeyay isla markaana doonayaan in dhibaatooyin kala duwan ay ka geystaan hay'adaha ammaanka ayaa dhankooda waxay adkeeyeen ammaanka guud ee magaalada iyagoo ciidamo aad u fara badan dhigay isgoosyada ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana ku amray ciidamada inay feejignaadaan oo ay markaasi si weyn baaritaan ay u sameeyaan si looga hortago dhagarta kooxda al-shabaab haddaba iyadoo arrimahaasi jiraan ayaa haddana dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu bilaabay olole xoogan oo ku aadan doorashadiisa iyadoo la sheegay in habeenadii ugu dambeeyay ay la kulmayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gaar ahaan kuwooda taageersan Villa Soomaaliya oo 100 kor u dhaafaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa laga cabsi qaba ama uu yahay ninka ugu tunka weyn markaasi laga cabsi qaba in markale uu ku soo laabto doorashada dalka isla markaana uu markale hogaamiyo dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo si weyn hamuun ugu qaba madaxweynaha inuu markale u soo laabto guud ahaan daawadeel warkaad kala socoteen channelka waa nageynta